haddaba marka XRP waxaa ka jaanis fiican oo ka marketka yar lacag la yiraahdo Ego ila fiiriyan Ego marka aan fiirino sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Payoneer waa loo yaqaanaa lacagtan waa la dhahaa Payoneer magaceeda labaad ayaa loo yaqaanaa Ego inta suuqa la gatay waa 1.4 milyan market capkeedu waa yar lacagtan way cusub tahay market capkeedu waa yar okay maximum supply geeda waa 223 milyan waay fiiriya 303 milyan XRP meeqa waay waa 100 bilyan waay way ku laba laabmaysaa adiga marka lacagtan in ay mustaqbal fiican ay leedahay oo $1 degdeg ku gaari doonto laba xalis mooydiinayso hadda 0. waxay maraysaa 0.025 ayaa maray marka mustaqbal fiican ayaa leedahay Ego ayaa la yiraahdaa waxaana ka heli kartaa Bybit ayaa ka heli kartaa haddii aad coin sidoo kale halkan ka aragto oo aad rabtid meelaha ka heli kartid lacagtan Binance ma taalo meelaha ka ogaan kartaa waxaad tagaysaa market ayaa tagay waxaad ogaanaysaa marka meelaha laga iibsan karto banki waa ka iibsan kartaa Bybit Bitgate KuCoin Binex Max intaan oo exchange waa ka iibsan kartaa lacagtan ma taalo Binance ma taalo waxa kale oo fiirinaynaa coinka la yiraahdo Hedera ama Habrar coinkan sababtoo ah waxa waay market supply-giisa 50 bilyan ah inta la soo day doono waa la sii og yahay oo waa 50 bilyan marka wax dambe oo hadda soo fasixi doono ma dhinna kontakas bilyan ayay suuqa ku soo daayeen inay guwaanne waa laga yaabaa marketingkoodana waa fiican yahay marka Bitensor waxaa loo yaqaanaa Tao ayaa loo yaqaanaa lacagtan suuqa waxa u taalo 7.3 milyan ayaa u taalo maximum supply-goodana waa 21 milyan lacagtan coinkan waxay la mid tahay sida Bitcoin ee 22 milyan u taala camal iyana u taala haddana xabadkii waxaa la gadooyaa $619 $600 ayaa la gadooyaa inay marka lacagtan sida Bitcoin ay gaari doonto 50,000 100,000 inay gaari doonto taas isweydiin malaha sababtoo ah market supply ama total supply-geeda waa 7 milyan 7 milyan halka Bitcoin uu ka yahayne 19 milyan marka tan Janis ayaa ka banaan $600 $1,000 laba xabad aad gadatid waxa waaye faa'iido ayaa haysataa waay haddii aad sugis ka dhaceysana intaas oo u dhaceysana waad sugi kartaa hadda maalmihii ugu dambeeyay oo kale $500 ayay mareysay meeshii ugu hooseysay ay gaarto dib haddaan u fiirino $30 ayay meeshii ugu hooseysay ay gaarto ayay ahayd marka Bitensor ama Tao Janis ayaa ka banaan iyadana okay Render oo kale $8 ayaa hadda maraysaa market supply-geedana waa 512 milyan waaye idan Janiskeedu waa fiican yahay maximum supply ay soo fasixi doonaan waa 644 milyan 500 ay soo fasixeen wax yar ayaa u wartay all time high-geeda waxa waaye $13 way ku dhowdahay $8 ayay maraysaa $5 camal ugu dhimanaa umaleynaa $4 iyo 3 senti camal ugu dhiman inay meesha ay gaarto marka XRP dadka maalgashan rabo ama inay maalgashtaan rabaan waxa ugu jaanis fiican uguna faa'iido badan hadday long term strategy ay rabaan Ego ayaa ugu jaanis fiican waana raqiis waa 0.0 ayay maraysaa all time geedana waa 0.13 sidoo kale maximum supply ama market supply geedana waa yar yahay oo suuq dhan waxa ku yaalo 323 milyan ayaa u taalo in halka XRP ee 100 bilyan xabay u taalo hadda waxa fahantaa umaleynaa markii aad coin iibsanayso inta aadan price-ka coin-ka aad ku wareerin waa inaad fiirisaa supply market-ka halkaas ayaa go'aanka suuqa laga qaataa coin-ka meesha uu marayo waxaan filayaa inaad fahantay oo hadda kadib aad coin-ka adiga aad analyze garaysan karto insha Allah haddii aad muuqaal ka heshay YouTube-kan subscribe saar sidoo kale TikTok-gana follow soo dheh wixii warbixinaha oo cryptocurrency ku saabsan halka ayna soo dhigi doonaa insha Allah